waxaynu dhex joognaa jiha ka mid a arlada eebbe. waa jarmaado arooryo oo jawiga dunida ayaan u kuurgalaynaa. waa dhul baadiyeed barwaaqo ah oo magaalada ka baxsan. yeedhmada duurjoogta iyo qulqulka biyaha amase huganka hawada marka laga yimaado ma jiro sawaxan iyo buuq dhaguha ay maqlayaan oo halkan ka jira. ma jiro farsamooyin gacmeedyo aadamuhu nashqadeeyeen sida guryaha iyo baabuurta oo indhuhu ay qabanayaan oo wax walbaaba halkan waa rabbaani asala. dhada dul joogta doogga oo aad roob u malayso iyo widdigii maalintii waxay indhuhu qabanayaan daruuro buuraha dul heehaabaya. malaayiin abuur oo kala muuqiyo awooda duwan oo daayinkeennu uume ayaa meel walba ka muuqda oo jiho walba oo arladan eebbe aad jilleecyad waxaad arkaysaa calaamado cibro qaadasho leh oo jiraarka ilaahayna muujinaya. waka'ayin badanaa oo badana min aayatin intii mucjiso ah oo fi samaawaati samooyinka ka muuqanaya waalardi oo dhulka ka muuqanaya oo yamuruuna calayhaa intaa haddana ay dul marayaan. alla maxaa mucjiso iyo aayad weyn cirka iyo dhulkaba hareerahooda taalla bini'aadmiga yamuruuna calayha oo intaa haddana ay dul marayaan. wa hum haddana canhaa aayadaha faraha badan iyo mucjisooyinka mucriduuna waxba kuma qaataana way ka sii jeedsanayaan. kuwani waa wacyi iyo darsi diiniya. waa muxaadarooyin iyo nadwooyin aan hadlayno inu hor yaalla. waa bidhaamo qurxoon oo dhaayaqabad leh. waa dhambaalla iyo xaashyo koonka oogadiisa ku qoran oo ay tahay inaynu akhrisanno. ilaa siduu u leeyahay kitaabkani xaashiyo kala baxsan oo aynu akhriyayno ayuu kownkanaynu ku noolnahay. cirkiisa iyo dhulkiisa iyo baddiisa iyo berrigiisa iyo buurihiisa waa kown isaguna xaashiya leh kala baxsan oo u baahan akhrin. makhluuqaadka ilaahay ee dunida ku faafsan haddaan u fiirsanno maxaan ka faa'iidaynaa miyuu maankaagu isweydiinayaa. waxyaalaha makhluuqaadka ku jira markaad fiiriso ilaahay weynankiisaad ka dhex arki, xikmadda rabbi baad ka dhex arki, naxariis baad ka dhex arki, waxaad ka dhex arki awood iyo qudro aan lahayn xad lahayn baad ka dhex arki. ilaahay mu'miniinta ayuu ammaanay talow muxuu ku ammaanay? mu'miniinta ilaahay wuxuu ku ammaanay way fikiraan. oo maxay ka fikiraan? abuurka samaawaadka iyo dhulalka ayay ka fikiraan. markii makhluuqaadka eebbe ay u fiirsadaan oo ka fakeraan natiijada u soo baxaysaa maxay tahay? natiijada uga soo baxaysa waxa weeye rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila. rabbiyow walle waxaan sidan isu saaran inaadan bilaash u abuurin. qaybtii koowaad ee barnaamijka xaashiyaha koonku ha inoo bilaabato. cadceedda ifaysa daawo, ilwaadka iyo nuurka daawo, abaabulcadaanta daawo. qorraxda ama cadceeddu waa mid ka mida aayaadka ilaahay ee ibnu aadamku aadka u yaqaanno. waa iftiinka baaxadda weyn ee ifkiisu ku faafo dacallada dunida. waa tamarta iyo ilayska ugu weyn ee nooluhu uu ku tiirsan yahay. inkastoo maalinta iyo qorraxduba yihiin kuwa nooluhu u baahan yahay, misena waa arrin adag in lala qabsado weligeedba qorraxdu inay ahaato mid iska soo taagan oo aan dhacayn. bal qiyaas waxaa dhici lahaa dunidan oo bilaa habeen ah oo maalin joogta ah weligeed ku jirta. ilaahay wuxuu leeyahay: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow, bal ka warrama hadduu ka yeelo ilaahay korkiinna maalin joogtaa ilaa qiyaamaha. waa kee eebbahaan ilaahay ahayn ee idiin keeni karaa habeen aad ku xasishaan miyaydaan wax arkayn? afalaa tubsiruun. ilayska dharaartii sida aynu ugu dhex jirno ayaynu arkaynaa qorraxdii oo dhanka galbeedka ku sii siqaysa iyada oo qiyaasaha rabbi iyo jaangooyntiisa ku socota. markaas ayaad maqlaysaa dadkii oo leh waa casarliiq. muddo kadibna iftiinkii cadceedda ayaa aayar aayar u suulaya oo lumaya ilaa duniduba ay noqoto mid mugdi ah. isweyddiiyo yaa hawlaha maamulaya oo wakhtiyada habeen iyo maalin isweydaarinaya oo kala soocaya. ilaahay wuxuu leeyahay:
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون waxaa dadka calaamad ugu filan in maalintii aanu habeenkii ka siibno oo markaana mugdi ay galaan dadkii habeenka amuuman daawo shareerkiiyo aqalladiisa haddana ashqaraaradiisa ardaayada gogosha taalla umuuraha seexday daawo dunidan hadba dacal ayaa gelaya habeenkiisii halkaasoo dadkuna ay ku hoydaan gabaadkooda waayo habeenkii waxaa ku lamaan mugdi khatartiisa wataa dhulalka qaarkood habar dugaagga iyo halaqmareenka iyo aadamaha dhibwadayaasha ah ayaa iyaga oo mugdiga ka faa'iidaysanaya habeenkii gudaa si ay hagardaamo u geystaan sidaa daraaddeed dadku hadiya goorba waxay noqdaan kuwo ku nagi guryahooda si ay nasasho nafeed u helaan oo ay waxyeello uga badbaadaan ardaayada gogosha taalla umuuraha seexday daawo dadka intoodii lulootaa waxay helayaan hurdo iyaga oo naawilaya saacado koobanba kadib in habeenku uu tago oo mugdiga laga faydi doono bal qiyaas haddii malahaasi rumoobi waayo oo habeenkuba ahaado mid iska soo taagan oo aan tegayn bal ka warrama haddii mugdiga habeenkii aan weligeedba laynaga faydeen oo maalinta iyo ifkooduba ahaan lahaayeen waxaan jirin oo aan la aqoonba ilaahay wuxuu leeyahay قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal ka warrama hadduu ka yeedho ilaahay korkiinna habeen joogtaa ilaa qiyaamaha waa kee eebbahan ilaahay ahayn ee idiin keeni karaa iftiin miyaydaan wax maqlayn أفلا تسمعون habeenkii oo muujinaya sida uu maalintii uga duwan yahay ayaa xilliyadiisa dambe soo bandhigaya midabadiisa layaab kale ee madowga badan wakhtiyada dambe habeenkii ruuxu intuu hurdada ka tooso samada sare eega waa hubaal inuu arki doono duni deggan oo la yaab leh bal eeg waa cir madow oo ay ku xardhan yihiin xiddigo dhoohoodu dahab yahay iyo ololka daawo fugaa fagaaladeeda laxaa iyo ololka daawo xiddigaha samada teedsani mar waa tilmaamo lagu safro oo ku jihaynaya mar kalena waa dheeh qurxiyo samada misna waa hub lagu gano shayaadiinta بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطاني لا يعلم الإنسان ما يقضى saqda dhexe marka aadamuhu seexda oo jawigu degan yahay cirkuna uu qurxoon yahay ayuu rasuulkii rabbi nabadgelyo korkiisa ahaatee intuu hooygiisa ka soo baxo ayuu samada eegi jiray sida laga wariyey saxaabigii cilmiga badnaa ee cabdulaahi bni cabbaas cabdillaahi wuxuu leeyahay nebiga sal lla alay wasalam baan maalin habeenada ka mida la baryey markaasaa nebigu faqaama annabiyu min aakhiri alleyl habeenka gelinkiisa dambe marka la gaadhay ayuu nebigu istaagay sala allahu calayhi waalihi wasalam fakharaja fanadara ila asamaa intuu gurigiisii ka soo baxayo qolkiisii oo bannaanka soo istaagay buu nebigu samada fiiriyey sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu akhriyey aayaddan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب wuxuu yidhi uma rajaca ila albeyti kadibna gurigiibuu dib ugu noqday qolkiisiibuu dib u galay fatasawaka watawada'a uma qaama fasalla waa soo cadayday waa weysaystay kadibna waa istaagay oo salaad buu isu taagay uma dajac kadibna waa seexday nebigu sal alay waslm xogaa intuu tukaday salaadaha buu seexday uma qaama fakharaja mar labaad buu haddana habeenkii soo kacay markaasuu qolkiisii ka soo baxay fanadara ila asamaa'i fatala hadihi alaaya mar labaad buu soo bax bannaanka intuu soo taagay oo samada fiiriyey ayuu haddana aayaddii akhriyey ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar markaasuu haddana laabtay waa cadayday waa weysaystay kadibna salaad buu galay nebigu sal alay waslm aadaan maqashayaaba bilaal xasuusatay لا إله إلا الله
sida aynu ogsoonnahay bilaal wuxuu ahaa mu'adinkii rasuulka sida qofka iyo hadhkiisu u wada socdaan ayuu mar walbaba nebiga uga agdhowaa habeen ayuu damcay inuu nebiga ogeysiiyo in wakhtigii salaadda subaxuu soo dhowaaday markii uu ridda soo joogsadayba waa rasuulkii rabbi oo ilmaynaya gadhkiisii ayay lintu qoysay oo jilbihiisii lintu intay dhaaftay ayay dhulka u dhaadhacday falam yazal yabkii xataa balla alard bilaal isaga oo yaaban ayuu rasuulkii weyddiiyey qaala yaa rasuula allah lima tabkii waqad gafara allaahu laka maa taqaddama wamaa ta'ahar maxaad u ooyaysaa iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo kii dambeba uu dhaafay rasuulku wuxuu ku jawaabay qaala afalaa akuunu cabdan shakuura oo miyaanan ahaanayn addoon mahadnaqaa nebigu sala allaahu calayhi wasalame bilaal wuxuu u sheegay habeenka laqad nasalat calaya alleylata aayah waylun liman qara'aha waliman tafakkar fiiha waxaa iigu soo degtay aayad qur'aan ah aayaddaas halaag ha ku dhaco qofkii akhriyay een macnaheeda dhuuxin ee u fiirsan aayadahaasi maxay ahaayeen inna fii khalqi الsamaawaati wal-ardi waاkhtilaafi al-layli wan-nahaari la'aayaatin li'ulil albaab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض أبورك السموينك إيا دولك وحكسوغا واختلاف الليل والنهار إيا إسويدارك هبينك إيا مالنت لآيات على موين باو قصوغا لأولي الألباب ذاتك عقلي عليه أي عقلي أصحاب العقول كعد عقلي عليه على موين بهالكاكهلي الذين كوي كوا عقلي ويني يذكرون الله إلهي بحسان قياما يقو سرتشوه وقعودا يقو فرديا وعلى جنوبهم يقو لنعود أو تشيفة لنعيدوده ويتفكرون وحا يدغنيان ويآدو إيغيغيان في خلق السماوات والأرض سموينك إيا دولك أبوركو ذهبكو إلهي وأبورك قائلين إيغو أولانا يبي كدغنت ربنا إله يجي وما خلقت هذا عالم كان كما ضبور باطلا أبور حكمة الضراء سبحانك إله وحمان ذاك فن يحكمة الضراء فقنا عذاب النار نار عذاب كذا الله ونقبت بالي dadka na maqlayo waxaynu cabbaar ka hor soo maqalnay وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون waxaa dadka calaamad ugu filan in maalintii aannu habeenkii ka siibno oo markaana mugdi ay galaan dadkii mugdiga ayaa laynaga faydayaa si aynu dharaar cusub u soo dhowayno waa taasoo waa hiirtii waa beri astaamihii habeenkii lagu yaqaanay oo idil ayaa mid mid u suulaya oo nuurkii dayaxa ayaa tegaya qoraxda ayaa noqonaysa iftiinka jira adduunka ee ugu awoodda badan ilaahay wuxuu leeyahay وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب waxaan ka dhignay habeenkii iyo maalintii laba calaamadood waxaan tirnay habeenka astaantiisiiyo dayaxa ah waxaan ka dhignay calaamaddii maalintii mid ifaysa si aad u baadi goobtaan fadliga ilaahay iyo si aad u garataan tirada sanooyinka iyo xisaabta تعلموا عدد السنين والحساب dayaxa ishi buuxsankiisa
aashaa socodkiisa daawo dayaxa dusheenna ah iyo cadceeddaasiba waxay ka mid yihiin nimcooyinka ilaahay inoo sakhiray cadceedda ifaysa daawo jadwalka nolosheenna ayay dowr lixaadle kaga jiraan la'aantoodna tirsiga sanooyinka ama xisaabta xilligu inooma suuroobeen qorshayaal isu qiyaasan oo rabbaani ah ayay ku socdaan dharaar qura hadday amarrada eebbe qorraxda iyo kuwa la midkaahi jabin lahaayeen khalkhal ayaa intuu dhaco waxaaba la arki lahaa habeenkii oo maalintii ka soo horreeya ama qorraxda oo dayixii gaadhay wakhti ay isgaadhayaan baa jira wakhtigaasina waa marka la ysku dhalaalinayo marka ilaahay uhi qorraxdii iyo dayixii baan isu geeyo isgaadhay وجمع الشمس والقمر markaa waa isku dhalaalaysa laakiin inta kale ilaahay baa kala ilaalinaya oo waa ballanqaad rabbaani ah oo ilaahay wuxuu ku leeyahay fii suurati yaasiin لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون qorraxda uma suurowdo inay haleesho dayaxa habeenkana uma suuroobo inuu maalintii ka horreeyo oo mid walbaaba falagiisu dhex dabaalan وكل في فلك يسبحون